kulankan oo maanta ka qabsoomay xarunta madaxtooyada oo ay goobjoog ka ahaayeen madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Silaanyo mas'uuliyiinta saddexda xisbi iyo shirguddoonka baarlamaanka waxay sheegeen in Soomaaliland mowqifkeedu yahay sidii ay u sugi lahayd xuduudaheeda hogaamiyayaasha saddexda xisbi iyo shirguddoonka baarlamaanka ayaa sharaxay mowqifka ay ka taagan yihiin howlgalka ciidamada Soomaaliland ay toddobaadkii hore kula wareegeen degmada Taleex maanta shirkan waa shir qaran oo lagu difaacayo qaranka oo lagu soo duulay shacab iyo xukuumad iyo ahsaab dhamaanteen waxayna waajibaan dalka daafacano madaxweynuhu inagu hogaamiyo waa maalintii la midoobay wixii kale oo dhan halkan la dhigayaa maanta waa difaac qaran baynu ka meeysanahay qaranka Soomaaliland isaga ka mas'uula maamulka dalkiisa ilaalinta xuduudihiisa iyo ilaalinta xuquuqda shacbigiisa waxay difaaca qaranka هذا كلام مدحوينه يدي وانو قرب تاجنا ضمن هاي حسب عد يا أصحاب تكلبا وحنا لو بهاي وحوي إن تهاي فرين أدق ونقدر إنه مجتمع الدنيا ولأن هذا هاي ومدة في سومالان قرن مدة إلا يستدحي 30 سنة هاي ستي وحمانتنا أو ديارنا هاي إن ليجو هرنو ليجو عصب أنت سامع حوينها هي الدولة دي سلقوه ذا قرب تاجي wixii loo baahdana dad iyo dunyaba waa loo diyaar sool iyo sanaag aan ka soo jeedo waxa weeye mowqifka madaxweynuhu qaatay baanu qaadanay dalka annaga iskale cid kale oo aanu kala qaybsanaynaa ma jirto annaga ku raaliya waxaanu u sheegaynaa international community-gana waxa weeye inay ixtiraamaan xuduudaha Soomaaliland madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo ayaa sheegay in xukuumad ahaan ay ka go'aantay sugidda xuduudaha waxaanu sidoo kale jawaab ka bixiyay baaqi ay beesha caalamku ku dalbatay in Soomaaliland ciidamadeeda ay kala baxdo Taleex waxa jirta in Soomaaliland hore u cadeysay mowqifkeeda ku aadan nabad ku wada noolaanshaha iyo deganaanshaha mandaqada aynu aaminsanahay inay cid waliba tani ugu jirto waxaanu se kor iyo hoos ba u sheegayaa inay qadiyadda Soomaaliland lama taabtaan tahay dawlad xisbiyo baarlamaan iyo shacabba inaynu heegan u nahay adkeynta nabadgelyada iyo sugidda qarannimada Soomaaliland wadamada aanu dariska nahay iyo beesha caalamka waxaanu jecelnahay inaanu nabad ku wada noolaano mana ogoli faragelin dibadeed mid siyaasadeed mid military toona dhulkayaga iyo dadkayaga qadaf ku ah shacbiga Soomaaliland waxaan ugu baaqayaa inay soo wada jeestaan oo ay u midoobaan difaaca dalka iyo adkeynta nabadgelyada ciidamadeena qaranka ee bariga ka taagan ciidamadeena qaranka iyo mowqifka qaateen iyo guulaha ay soo hooyeen iyagana aan hambalyo ballaaran u diro oo sida aynu sheegnayna aynu dalkeena iyo dadkayga caalamka u cadeeyno anagoo mar walba jecel inaan mowqifka iyaga la fahmi waayin inaanu dalkayga iyo daafacaadka qaranka aan cidna ku xadgudbayn cidna dhibaato u geysanayn cidda wuxuu geysanay ixtiraam iyo qadarin u hayno dadka iyo dawladda iyo ummadaha iyo jaarka iyo gobolada jaarka intaba laakiin aanan uga tanaazulaynin qadiyadda Soomaaliland iyo difaaca qarannimada Soomaaliland midna kulankan maanta ka qabsoomay xarunta madaxtooyada Soomaaliland ayaa yimi kadib markii ay wadamada Ingiriiska Mareykanka iyo Midowga Yurub ay Soomaaliland u soo jeediyeen inay ciidamadeeda kala baxdo degmada Taleex Khalid Xabsi Kalsan TV Hargeysa